dhaba in dadka la sixri karo mise waa cabsi iyo arrimo la buunbuuniyo been ah. maanta waxaan falanqayn ku samayn doonaa mowduuc xasaasi ah oo si qoto dheer looga hadlay barnaamijka Enigma, halkaas oo Dr. Maamuun Calwaani uu ka daaqaaday sir badan oo ku saabsan sixirka iyo waxa loo yaqaan sixir bararka. hubso inaad daawato barnaamijka ilaa dhamaadka, sababtoo ah waxaa laga yaabaa aragtidaada wax badan inay iska beddelaan. marka hore, su'aasha ugu weyn, sixir ma jiraa mise waa sheeko? diinta islaamka gudaheeda sixirka waxaa lagu xusay qur'aanka kariimka ah. taas macnaheedu waa in jiritaankiisu diintu caddaynayso. laakiin Dr. Maamuun wuxuu sheegay in dhibaatadu aysan ahayn jiritaanka sixirka ee ay tahay sida bulshadu ugu beddelay cabsi joogto ah. maanta qof kasta oo dhibaato la kulma ama guur burburay, shaqo la'aan, xanuun aan la fahmi karin, wuxuu si fudud u dhahaa waa la isixiray. laakiin su'aashu ayaa waxay tahay, ma hubnaa in la sixiray mise waa arrin oo asiga iska dhaadhiciyay qofka? waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya sixir sida diintu ku timid iyo sixir barar oo ah khiyaano iyo ganacsi. dad badan oo isku sheega saaxiriin waxay adeegsadaan hadallo guud oo qof walba quseeya, akhrinta dareenka qofka, macluumaad hore oo ay ka helaan dadka, iyo xeelado nafsi ah. waxay qofku ku abuuraan cabsi, kadibna waxay u soo bandhigaan xalka. tani ma aha mucjiso ee waa farsamo nafsiyadeed. haddaynu ku hadalno dhibaatada nafsiyadeed, qodobka ugu yaabka badan ee lagu sheegay waraysiga waa in xaalado badan oo loo malaynayo jingal, isha iyo sixirka ay dhab ahaantii noqon karaan walaac, murugo, cadaadis nololeed ama xanuun maskaxeed. laakiin dhaqankeenna ayaa mararka qaar ka doorbida in la aado qof wax akhriya halkii la aadi lahaa dhakhtar. fariinta ugu weyn waxay ahayd, rumaynta waxay diintu sheegtay waa muhiim, laakiin waa in aanan ogolaan in loo adeegsado magaca diinta. waa in la kala saaraa cilmi iyo khiyaano. waa in la raadiyaa talo caafimaad marka loo baahdo. ma aha wax kasta oo lagu magacaabo sixir inuu sixir dhab ah yahay. mararka qaar waa cabsi, mararka qaar waa dhibaato nafsiyeed, mararka qaarna waa ganacsi si xirfad leh loo maamulo. haddaba daawade, adigu maxaad aaminsan tahay? sixirku ma wax jiraa mise waa wax la buunbuuniyey oo si nafsiyeed dadka loogu dhaadhiciyey inuu yahay wax jiro? fikirkaaga qaybta faalada noogu reeb, ka mid noqo asxaabta ku xiran page-keena. mahadsanid.